gabadh muslimad oo Soomaali ah oo Congress-ka Mareykanka ku jirta ayaa kelimo sax ah ku hadashay Israa'iil oo xadgudubka la arko wada sida ay Mareykanka dhaqaalihiisa uga faa'iideysanaysay hal taqriida yar ka qortay Mareykankii waa kacay mana fadhiisanay madaxweynihii waa kacay ilaa loo fagaareeyay gabadhaas iyo madaxweynihii dhanaaya dalka labadii xisbiba waa kaceen wadanka ka tirsan jiray dimuqraadiga iyo jumhuurigiiba waa kaceen gabadha yarta la dagaalamaya xaqiiqay sheegtay markaas waxa la leeyahay hal iscasisho hal eriyo leesh boqolaal madow markii la laayana macna male masaajida muslimiinta marka la galana macna male madaxu ka jiray wax ka soo qaad male risaaladaasi waxay ku socotaa qaar badan oo inaga mid ah oo ay cajab gelisay reer galbeedku oo ay la qumanaatay thaqaafada reer galbeedku oo u qaatay adduunkii inuuba ku dhamaaday thaqaafada reer galbeedka oo liberaliyiin iyo cilmaaniyiin ah oo najiidayo noo jiidayo inaan reer galbeedka ku dayano iyo dhaqamadooda akhlaaqdeena iyo dhaqankeena iyo hidaheena iyo waxeenina aynu ka tagno risaaladaasi waxay ku socotaa fasira waa in kale dadka lagu dayday reer galbeedka noo fasira maxay yihiin waxyaalaha nooca dhacdooyin nin walba akhrinaya way maanta wax qarsooni ma jiro inta kadib rasaa'il dhowr ah ayaan doonayaa inaan muslimiinta u gudbino khaasatan muslimiinta aqaliyadka laga tiro badan yahay dhulalka gaalada ku nool qodobka koobaad waxa weeye risaalada koobaad waxa weeyaan diintiina ku sugnaada aqeedadiina ku sabra wixii dhacaya ha dhaco halaydu dilo laana wala wada dhiman geeridu waa xaq laakiin inaad tawxiid ku dhimato iyo inaad gaalnimo ku dhimato farqigu intaas waa inaad dhimato adoo tukanayo lagu dilo waa shahaada waa dhimashatii ugu qiimo badnayd waa ruuxa muslimka ah haddii diintiisa loo dilo oo aqeedadiisa loo dilo oo akhlaaqdiisa loo dilo xataa gogashiisa iyo gurigiisaba ha lagu dilay waa shahiid ilaahay baan uga baryaynaa tabaaraka ta'ala inuu shahaadadooda aqbalo muslimiinta la leeyahay nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa ka sugan isaga iyo saaxiibkii Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman baa waxay fuuleen buurta Uhud ayagoo buurta korkeeda saaran ayay buurtii dhaqdhaqaaqday way gilgilatay way ruuxatay markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam buurtii la hadlo wuxuu yiri Uhudow dhaqdhaqaaqa jooji waxa ku dul saarani waa nabi iyo siddiiq iyo laba shahiid waa nabiga garanay صديقنا قرنا وأبو بكر لبدا شهيديه وعمر يا عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين عمر وحال قد لي مقالة مدينة أساقو جورا فرين دقال لقمد دلين أساقو مسلمين تتوچين يا مساجد كالنبي صلى الله عليه وسلم بار لداوعي كذبنا السداسو كل انتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومع ذلك النبي قحوق مرخاتك عينه الشهيدية عثمان نسيدو كلمة قالة مدينة لقد لي وقال كعدون سميسو خوارجي بلا يخربنا بعد الشيء مقالة النبي قال لقد لي صلوات ربي والسلام عليه يسقون فرين دقال لقمد دلين مع ذلك النبي قال قتلوا إلا الشهيدين يهين لماذا؟ لأن عقيدة اللود لي لأن الدور كي يكالنتي دين تنقلها أيام فافين تهذا اللود لي عدو باد لي ما دام الروح الدين تسلود لي مسلم كهو شهيد حتى مساجد هاللقد له قوشي سهاللقد له بنانك هاللقد له sidaas daraadeed geeri fiican way inaad qabsataan oo diintiina ku dhimataan oo ku noolaataan wax ka fiican ma jiro ilaahina quraanka kariimka wuxuu inagu baray duruus buu inagu siiyay dadka muslimiinta markay xaalad adag galaan inay diintooda ku dhintaan oo ayna marna diintoodii akhlaaqdooda ka noqonin wax kasto idin qabsada marka diinta ku fara adayga xijaabka ku fara adayga salaada iyo masaajida ku fara adayga akhlaaqda wanaagsan ku fara adayga ku noolaado ku dhinta gabadh muslimad oo Soomaali ah oo Congress-ka Mareykanka ku jirta ayaa kelimo sax ah ku hadashay Israa'iil oo xadgudubka la arko wada sida ay Mareykanka dhaqaalihiisa uga faa'iideysanaysay hal taqriida yar ka qortay Mareykankii waa kacay mana fadhiisanay madaxweynihii waa kacay ilaa loo fagaareeyay gabadhaas iyo madaxweynihii dhanaaya dalka labadii xisbiba waa kaceen wadanka ka tirsan jiray dimuqraadiga iyo jumhuurigiiba waa kaceen gabadha yarta la dagaalamaya xaqiiqay sheegtay markaas